soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada kobciya crypto forum waxaan safiiri doonaa update-kii ama wararkii ugu dambeeyay ee suuqa ayaan safiiri doonaa sida u jeedaan suuqa waxaa ku jirta lacag dhan 3.47 trilyan 24 saac la soo dhaafay suuqa waxaa soo gashay 110 bilyan ayaa soo gashay haddaan fiirino dhinaca qiimayaasha BTC $102,369 ayaa maraysa Ethereum 3,119 ayaa maraysa XRP $3 ayaa maraysa Solana 229 fiilan gridka haddaan fiirino wuxuu marayaa 72 ayuu ahaa isbuucii soo dhaafan wuxuu ahaa 84 markii la isku celiyo bishii u dambeysana 65 sida uu sheegayo tirkoobkii u dambeeyay haddaan fiirino dhinaca crypto bubbliska sida u jeedaan suuqa markii laga reebo dhowr coin inta kale weli correction ay ku jiraan wif ayaa ugu sareeya move ayaa ku xiga taw ayaa ku xigta soo kale haddaan fiirino 1 hour ka kale haddaan fiirino suuqa wuxuu ku jiraa yani nasiino ayuu ku jiraa sidoo kale weekly haddaan fiirino coinanka inta badan ayagana nasiino ayay ku jiraan oo dhaqaaq badan ma aysan sameynin haddaan fiirino dhinaca heat mapka cryptada sida u jeedaan cryptada si guud ma xuma oo dhaaqeeda yani soo kabasho ayaan ka dareemeynaa haddaan fiirino dhinaca stoga waa timaan loote qac laga yeersiiyey oo shirkadihii inta badan ay maaragtay minus fiican galeen haba ugu darnaatee shirkadda Nvidia ay ugu darnaato marka shirkadda Nvidia maanta soo kabasho fiican ayaan ka arki karnaa soo kale haddaan fiirino barnaamijkan loo yaqaano DeepSeek oo ah artificial intelligence la mid ah ChatGPT ayaa dunida haystay oo sababta u weyn ee shirkadda Nvidia hoos u dhac ku riday ee number 1 ka ahayd haddaba waa maxay barnaamijkan DeepSeek wax kale maahan waa barnaamij artificial intelligence ah oo la mid ah barnaamijka ChatGPT ee leedahay shirkadda Open tusaale haddaan fiirino inaan galnaa rabnaa oo isticmaalno sida u jeedid uu wareegsanayaa meesha wax lagu qoraayo oo searchingkiisa waa kana marka aniga ahaan saakay waa baraaweeyay waxa waaye culays aad u badan baa haysta waxaan leeyahay saaxiib iyo waran aan leeyahay tusaale ahaan sida u jeedid culays badan ayaa ku jira oo serverkiisa waa jam dadkii ayaa ku daatay waxyaabaha yaabka dadka ugu daatay waxaa ka mid ah in yani qaybtii oo 200 ay ku kala jirtay shirkadda ChatGPT-ga ay qoladan ka dhigeen free ayay ka dhigeen haddaba markii la fiiriyo waxyaabaha aad weydiinaysid iyo sida kugu jawaabayo waxyaabahaas oo dhan wax isku mid ah ma ahan tusaale ahaan haddaan fiirino hadda ChatGPT haddaan fiirino oo aan dhahno saaxiib ii waran haddaan u qoro xitaa haddaan u gaabiyo uu fahmayaa saaxiib ii waran aan idhaahdo tusaale ahaan ii waran af Soomaali caadi ula sheekaysanayaa ma fahmin wax badan ma ii sharxi kartaa ayuu ku yiri okay waan ku sharxi karaa caadi maartay si nadiif ah oo daadaan lahayn ayuu maartay ii sheegayeen ujeedada waxay weydiinayaa macnaha saaxiib ii waran yani gaabitaanku fahmi laayahay marka aan caadi uga dhigo ii waran ii waran aan leeyahay hadda waan fahmay yani waa salaanta saaxiib ii waran ayuu ku yiri okay ujeedada waan fiicanahay mahadsanid adiguna saaxiib ii waran ayuu taagan yahay yani waa barnaamij sidaa u shaqeynaya aniga qaybta freegan isticmaalaya premium ma ahan marka barnaamij yani sidaas u shaqeynaya iyo barnaamij aanba waxaan kala fahamsaneyn ayay kala noqdeen marka muhiimadda ugu weyn ee qoladan DeepSeek ay meesha la yimaadeen waxa waaye yani dadkii free inay soo jiiteen haddana barnaamijka ay qiimo yar ku sameeyeen oo haddana degdeg ku sameeyeen halka ChatGPT-ga shirkadda OpenAI ay leedahay lagu sameeyay wax ka badan $100 milyan haddana waqti badan yani uu qaatay in la soo saaro waxyaabahaas markii la fiiriyey shirkaddan DeepSeek waxaa laga leeyahay China ayaa laga leeyahay OpenAI waa shirkadda iskale ChatGPT-ga waxaa laga leeyahay Mareykanka madaxweyne Trump oo ka hadlay arrintan ayaa yiri arrintan waa baraarug fiican oo hurdada iyo inoo kici doonta inaguna waan ka jawaabi doonaa ayuu yiri
waxyaabahaas oo dhan markaan fiirino waxay noo muujinaysaa in dagaalkii siyaasadda, dagaalkii elektroonigada, dagaalkii internetka laga soo gudbay oo dagaalkii artificial intelligencega ay hadda baasha marayso. waxyaabahaas oo dhan waxayna tusinaysaa halka adduunka maanta u socdo. haddaan fiirino dhinaca iyo xogaha niyuusyada maanta jira, waxaa ugu waaweyn crude oil inventories-ka ayaa ugu weyn. sidoo kale waxaa jira shirka ama warbixinta FOMC waa guddiga sare Mareykanka u qaabilsan xogaha dhaqaalaha. sidoo kale haddaan fiirino waxaa kaloo jira yani federal interest rate yani decision go-aan baa laga gaarayaa heerka dulsaarka. horey wuxuu ahaa 4.5 ayuu ahaa, haddana waxaa la filayo oo la saadaalinayo waa inaan la jarin ama wax lagu darin oo ku soo baxo 4.5. sidoo kale markii saacaddu noo tahay bariga Afrika 22 iyo barkaba 10 saac iyo bar habeenimo, 4 saac iyo bar habeenimo markay noo tahay. sidoo kale waxaan sugaynaa press conference shirka jaraa'id ee guddiga sare ayaan sugi doonaa. haddaan fiirino dhinaca iyo bitcoin-ka maaragtay kaydka bitcoin-ka haddaan fiirino ETF-yada hadda waxay haystaan 1,341,020 xabo oo bitcoin ah. sidoo kale wadamada waxay haystaan 529,000 public companies-ka waxay haystaan 619,000 private companies-kana waxay haystaan 368,000. sidoo kale yani BTC mining companies-ka waa shirkadaha mayngaraya BTC-ga 88,000 ayay haystaan. DeFi-ga marka la isku daro wuxuu haystaa 155,000. waxyaabahan oo dhan yani maaragtay waxaan ka arki karnaa yani xogaha sida yani u aruursanaya BTC-da. sidoo kale ninka odaga ah ee shirkadda Microsoft iskale Michael Saylor isaguna wuxuu ku dhawaaqay in uu lacag cusub u raadi doono sida u gatay BTC-ga oo hadda Microsoft BTC-ga guud wuxuu marayaa 471,000 ayuu marayaa. waxyaabahaas oo dhan waxaan ka tusaale qaadanaynaa sida yani loo kala dafayo bitcoin-ka. dhinaca Rainbow haddaan fiirino waxaan arki karnaa in yani bull run-kan BTC aad u dhaaqi doonto oo tusaale ahaan yani Rainbow-ga waxyaabaha dhaqaaqa markii yani laga filayo BTC-ga ayaa aad lagu cabiraa oo hadda sida u jeedid haddii yani meeshaan sida 2017 dhacday waa maartay bull run-kii hore 21 bull run-kii ka horeeyay waaye. bull run-kii u dambeeyay 21-kana waa kana sida u jeedaa. marka hadda haddii uu ku aado meeshaan yani maaragtay BTC dhaqaaq weyn baa ka fili karnaa. marka ayadana ishaha lagu hayo.